furimaha kala duwan ee haatan uu dagaalku ka socdaa ilaa iyo 15 furimood ayay markaasi yihiin dagaaladu ka holcayaan meel walba dagaal ka socdaana uu yahay marka dagaal aan qiyaasi karin dhinaca wallo moogtahay dagaaladii way socdaan wali ayaa sidoo kale la sheegaya marka in haatan dagaal xoogan uu ka socdo u dhaxay ciidanka Itoobiya iyo xooga TPLF kaasi oo marka la sheegay in ay isku dayayaan TPLF in ay waldiya galaan dagaalka moogtahay waldiya ayaa u ekaa markaa mid soo qaboobaya maadaama ciidamada huwanta ah ciidanka Itoobiya iyo ciidamada Eritrea la sheegay la socdaan ayaa markaas dhinaca baala ka ruqaansaday iyagoo doonaya markaa in jidka A2 highway ay qabsadaan kadibna markaa ciidamadii TPLF ee galay wallo ayay doonayeen inay go'doon ku ridaan laakiinse xooga Tigreegu markii dambe waxa la sheegay in ay ciidamo badan ku soo gureen dhinaca furinta Abala oo waliba dhinacii buuraleyda ahayd ay haystaan moogtahay marka xoogagii ciidanka huwanta ahaa ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka canfarta iyo ciidamada gaarka canfarta isla socday iyo waliba ciidamada Eritrea la sheegay la socdaan oo marka doonayay in jidka A2 highway ee marka isku xidha Maqale iyo Waldiya inay jidka gooyaan bay doonayeen marka dhinaca Abala maraan marka xooga TPLF ayaa ka hortagay baa leeyahay marka oo dagaal xoogan oo qaraar ayaana ilaa iyo hadda socda waxaana isku dayayaan marka ciidamada huwanta ee dhinaca dawladdu in ay gaadhaan jidkaasi markaasi A2 highway haddii A2 highway jidka isku xidha Maqale iyo markaasi Koob ama Waldiya isku xidha haddii ay qabsadaan markaasi ciidamada Itoobiya waxa ay keenaysaa marka in ay gooyaan markaasi oo go'doon ku ridaan ciidamada TPLF ee dhinaca gobolka Wallo tagay ee marka ka dagaalamaya Koobo iyo Waldiya kuwaas oo marka saadka iyo marka laga gooyo jidgooyada lagu sameeyo ay keenayso in la jabiyo oo moogtay si yar fudud square looga qabto adoo si kasta haatee dagaalkaasi ilaa iyo hadda la hadlayo uu socdo waagaag dhinaca kale waxaana iska soo daba dhacaya guulaha ay sheeganayaan markaasi dhinacyada dagaalamaya maanta waxay sheegteen markaasi Tigreegu ma dhaweytay ay soo saareen muuqaalo markaasi horta video ah oo ka soo duubeen maxaabiis boqolaal markaasi ay sheegeen inay dagaaladii shalay ila daraadacay ay ku qabteen markaasi furimaha kala duwan ee markaasi dhinaca canfarta ee marka Birhale iyo marka dhinaca kale ee dagaalada Eritrea ka socda waxa sidoo kale maanta ay sheegayaan marka in ay soo rideen diyaarad dagaal oo ah markaas la nooca qumaatiga u kaca markaas militariga kuwaasi oo marka ay leeyihiin ciidamada Eritrea waxaana haatan sheeganayaan warbaahinta TPLF toodasha in diyaaradaasi marka ay soo rideen magaxooga Tigreegu dagaal xoogan ayaana haatan waxay sheegayaan inuu ka socdaan dhinaca markaasi Salambesa deegaankaasi ayaa la sheegay in ilaa iyo saaka ilaa haatan la hadlayo dagaalo marka qadhaadh oo lagu hoobtay in ay ka socdaan waxaana ay dhinacyadu adeegsanayaan balayda hubka artilleriga ah dhawaaqa ka dhaca markaasi madaafiicda ayaa la sheegaya in la moodo marka dhul gariir ka dhacayo meesha waxaana la sheegay haatan in xoogaga Tigreegu ay sheeganayaan in ay iska caabin badan sameeyeen oo waliba ay guulo badan ka sheeganayaan dagaalka oo sheegeen in ciidamadii Eritrea ay gam ka dhigeen waa sida ay warbaahinta taageerta TPLF ay sheegayaan dhinaca kale warbaahinta TPLF taageerta qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha la soo riday ay laba yihiin oo mid ay ka badan yihiin waxaana ay sheegeen haatan in markaa Tigreegu awoodiisa ugu badnayd uu isticmaalayo si uu markaasi isku difaaco dhinaca kale xukuumadda Itoobiya iyaguna warbaahinta taageerta ayaa waxa ay sheegayaan in markaa TPLF sutida loo qabtay oo markaa afarta dhinac haatan laga maray